cryptocurrency waa lacag. currency sideedaba waxay u taagan tahay lacag bay u taagan tahay. waa currency waa lacag la isticmaalayo. cryptona waa security, amni. lacagta amniga ee la isticmaalo ayay noqonaysaa cryptocurrency. cryptocurrency waxaan u maleynahay waxaan kasoo hadalkeeda bilaabo 2018 2019 2020 ilaa 2021 laakiin 2023 badanaa kama hadlo. sabahan inta badan uga hadlina maxay tahay ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah. aan ku hormara su'aasha marka ugu horeyso horta waa maxay cryptocurrency? cryptocurrency waa lacag la yiraahdo lacagta hawada. lacagta hawada lacagaha caadiga ah saa u taqaanaanba waxay soo mareen waxa la yiraahdo revolution oo ah waxay soo mareen kacaano kala duwan ay lacagaha soo mareen caalamka. saad ogtihiinba inta badan kacaan kasta oo lacagaha ay soo maraan waxa sabab u ahaa marxaladda markaa jirto ayaa lagu saleyn jiray lacagta. sideedaba lacagta waa waxa lagu kala bedesho interest, waxa lagu kala bedesho waay oo ah waxa aniga aan haysto adiga ayaa u baahan, waxaad adiga haysatana aniga ayaa u baahan. so waxaad adiga haysato inaan aniga helo waa inaan adiga ku sii waxaan aniga haysto si aan u helo waxaad adiga haysatid. lacagta sideedaba waa waxa lagu kala bedesho weeyaan. kacaanada kala duwan lacagta ay soo martay marka dib loogu noqdo taariikhda caalamka marka la dhaha global money revolution marka la dhaho waxay soo mareen qaybo kala duwan in lacagaha in dadka bulshada caalamka ay wax ku kala bedeshaan alaabta in wax lagu bedesho dharka dadka marka u baahdaan xoolaha kale in dharka ku bedeshaan galeyda ama badarka ama dadka waxa u baxa kheyraadka u baxa inay ku bedeshaan badarka ayaa soo maray. sidoo kale waxa soo maray in dahabka lagu bedesho diamondka ama waxyaalaha kale ee daily uses la isticmaalo lagu bedesho ayaa soo maray. marka lagu noqdo kala Masar oo kale waxay kamid tahay meelaha dahabka wax lagu kala bedelan jiray. Afrika oo kale waxay kamid tahay meelaha xoolaha iyo lagu kala bedelan jiray maxay ahayd badarka ama waxyaalaha kale la taaban karo sida dharka kale lagu kala bedelan jiray ay ahayd. ama dadka kalluumaysiga ama badaha ku nool oo kale waxay wax ku kala bedelan jireen dadka beeraleyda oo kale. waxay soo socdaan revolutionada lacagaha waxay soo mareen qaabo kala duwan. lacagta waxay soo martay shilin oo bir ah, bir laga sameeyay ay soo martay. saad ogtihiin waa revolution kamid revolutionada ee lacagaha soo mareen. lacagaha waxay soo mareen warqad lacag laga sameeyay sida hada lacagta doolarka oo kale warqad ayaa laga sameeyay saa taqaanaan. Soomaaliya lacag ay lahaan jirtay. lacagta Soomaaliya waxay soo martay marka hore shilin baa laga sameeyay bir ah, deetana waxaa loo bedelay in lacagta Soomaaliga ay noqoto warqad la taaban karo. kadib waxaa loo bedelay lacagihii inay noqdaan lacago la yiraahdo plastic loo bedelay oo ah kaarasha Visa kaarka kamida, credit kaarka kamida, debit kaarka kamida. waxay soo mareen marka plastic ayaa loo bedelay. kadib waxaa la gaaray in hawada la sumarsiyo oo ay noqdaan wax ka duwan plasticii, wax ka duwan shilinkii, wax ka duwan warqadii oo ah lacagta hawada oo digital money loo yaqaano. haddaba inta badan dadka Soomaaliya isticmaalaan. dadka Soomaaliya jooga hadda waxay isticmaalaan lacagaha hawada la sugu diro oo digital money ah laakiin magac ahaan xambaarsan dollar ay isticmaalaan ama lacagta Mareykanka ah ay isticmaalaan. lacagaha markasta way ka qiimo jabnaan jireen revolution kasta marka loo eego dahabka ama diamondka. 1971 ayaa madaxweynaha Mareykanka markaa haystay Nixon waxa uu amray lacagta Mareykanka ee dollarka ah inay u dhiganto dahabka. wixii inta ka dambeeyay lacagaha caalamka dhan waxa hogaaminaya lacagta Mareykanka oo ah lacag qaali ah isla markaan loo yaqaan US dollar. qiimo dhimis fara badan ayaa ku dhacay maadaama lacag badan ay soo daabacdaan marka ay Mareykanka u dagaalada galay. sida marka Mareykanka siyaasadda raba inuu la dagaalamo wadan ama cid siyaasadiisa ka soo horjeeda lacagtiisa ayuu ku gumaada oo kula dagaalama. markasta marka lacagta Mareykanka la soo badiyo lacagaha caalamka hoos u dhac badan ayaa ku dhaco. sidoo kale waxa dhaco waxa la yiraahdo recession ama hoos u dhac dhaqaale ayaa dhaco. wax sixir barar la yiraahdo ayaa dhaco. saad ogtihiin sanadkii 2008 waa sixir bararka ugu weynaa dunida ka dhacay ee soo mara. waxa u sabab ahaana wuxuu ahaa lacagta Mareykanka oo lagula dagaalamay wadamada ay kamid tahay Ciraaq iyo wadamo kale oo qaaradda maxay ahayd bariga dhexe ku yaalo. waxa ka soo dhaxbaxay nasiib wanaag fara badan halkaasi
lacag la yiraahdo cryptocurrency oo la aas-aasay labadii waxaan ku dhahdaa bishii labaad 2009 cryptocurrency waxa loo aas-aasay wax kale ma ahayn waxay ahayd Mareykanka marka uu rabo inuu wadan la dagaalamo ama uu duulaan qaado ama siyaasadiisa adeegsado maadaama lacagtu adeegsanay lacagtiisa hoos u dhac fara badan ayaa ku dhacay wixii ka dambeeyay hoos u dhacaasi 2008 waxay marka go'aansadeen maadaama adduunku uu digital noqday adduunku uu online noqday wax kasta online ay noqdeen inay isticmaalaan lacag u dhiganta lacagta Mareykanka isla markaana ah lacag hawada ah waxa la sameeyay lacag la yiraahdo Bitcoin ta ogtihiin Bitcoin ilaa hadda ninka ay Bitcoin maskaxda Bitcoin keenay waa la qariyaa Satoshi Nakamoto allaha laakiin asaliyan ahaan waa la qariyaa sababta loo qariyo waxay tahay Mareykan wuxuu rabaa lacagta Bitcoin inuu sidoo kale dadka ku gumaado sidii uu dollarka ugu gumaadi jiray isagoo markaa adeegsanay siyaasadda gaarka ah ee isaga uu leeyahay revolution bilowday markaa wixii ka dambeeyay 2009 waxaa bilowday revolutionka labaad oo ah lacagta fiat money in lagaga soo horjeesto ay ka awood badnaato lacagta la yiraahdo crypto money ama cryptocurrency inay awood badnaato lacagta Bitcoin waxay ku soo baxday qiimo aad u jaban oo ay ka qiimo jaban tahay halka dollar 50 cent oo dollar ay ku soo baxday 50 cent oo dollar ay suuqa ku timid markay ugu horeysay suuqa la keenay waxay socotoba waxay noqotay lacag aad u qiimo badan sidoo kale waxa la xadiday lacagtaasi cadada soo baxaysa inay yaraato sababtoo ah waxay isku dayayeen in dhaqaale hoos u dhaca caalamka in la yareeyo si lacagta Mareykanka qiimo ay u yeelato lacagaha kalena hoos loo dhigo si qiimo u qiimo jabaan ay u sameeyeen waxa uu kor u aaday marka maadaama la ogaaday in adduunka dhan laga isticmaali karo oo ay tahay lacag balaaran ee wadan aan ku xirneen qof kasta isticmaali kara maanta aniga Bitcoin aan haystaa waxay iigu jirtaa mobilkayga gacanta iigu jirtaa waxay iigu jirtaa Binance maxay had waladkayga meel kasta aan ku isticmaali karaa qofka Kenya jooga ayaan u diri karaa qofka Soomaaliya jooga ayaan u diri karaa qofka Japan jooga ayaan u diri karaa qofka Mareykan jooga u diri karaa ka Yurub jooga u diri karaa soo marka waxay noqotay lacag generally ah lacagtaasi marka ganacsatada waxay u bixiyeen the money of the people ay u bixiyeen maadaama fiat money waxa la yiraahdaa lacagta dollarka lacagahan dawladaha ay leeyihiin sida euroga kamida lacagta Kenya shilling kamida waxa kamida lacagta Mareykanka lacagahaas waxa la yiraahdaa fiat money marka fiat money agoodeeda waxa iska leh dawladaha laakiin cryptocurrency dawladaha ma laha waa lacag lagu sameeyay blockchain waxa la yiraahdaa nidaamka loo isticmaalo teknolojiyada lagu sameeyo qayb kamid ah oo lagu soo saaro ama wax lagu abuuro lacagta cryptoga markii la abuurayo waxa laga sameeyaa dhibco waxaana la yiraahdaa tokens kaasi marka oo la diyaariyo ee la sameeyo waxa loo diyaariyaa inuu mining wax la dhaha maro dhalaalis inuu maro calashaan waxay ugu talagaleen waxay dhaheen waa dahabkii hawada laakiin markasta waxaad ogaataan dahabka waa midku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhagaxi ka sameeyay Ilaahay baa inoo sameeyay dahabka waa midka aad taqaanaan laakiin iyaga waxay leeyihiin qoladan sameysatay cryptocurrency waa dahabkii hawada sida darteed marka la dhalaalinayo tokenska markay tahay ee dhibcaha suuqa aysan wali imaanin ee dhibcaha tahay waxa loo diyaariyaa in lagu sameeyo isla gudaha blockchain in lagu sameeyo miningka markay marto kadib ay isu bedeshaa inay coin noqoto number ay yeelataa marka inta ay miningka ku jirto oo ay tahay tokens ama dhibcaha way ka number duwan tahay marka ay imaato qaybta labaad oo miningki ay soo gashay isla markaana ay noqoto lacag coin ah ee la arki karo hal coin sentia coin markay noqoto markay dhalaaliska ka soo baxdo ay suuqi soo gasho ee coin ay noqoto marka wax lagu kala iibsan karo laakiin marka ay ku jirto wali tokens ay ku jirto beec badan lagu sameyn karo shirkado badanaana marka wixii ka dambeeyay lacagaha crypto sameystay sanad kasta waxa soo baxa ilaa 6,000 ilaa 7,000 oo lacag kala duwan ayaa soo baxa bil kastana lacag cusub ayaa soo baxa wixii ka dambeeyay 2009 lacagaha sidoo kale lacagtaasi daba yaala Bitcoin oo isla markaana crypto aad looga jecel yahay ama suuqa ku jira waxa kamid ah lacagta la yiraahdo Ethereum waxay kamid tahay lacagihii mudooyinka ugu dambeeyay aad u sare kacayay ee dadka aad ay u iibsanayeen inkastoo waayadan ay soo jabtay 2000 markii uu dhacay coronavirus isla markaana dagaalkii Ukraine iyo Russia uu dhacay hoos ay u dhaceen lacag badan hoos u dhaceen
oo ku saabsan lacagihii cryptoga dhan oo mining ama lagu soo sameeyay tokens ama lagu soo sameeyay maxay blockchain hoos ay u dhaceen hoos u dhac aad u fara badan ayaa ku yimid sababtana wax kale ma ahayn in wadamada qaar ayaa cunuqabateeyeen in lacagahaas la qaato oo kamid yahay wadanka China ba joojiyeen sababtoo waxay arkayeen u muuqatay lacagahan in lagu meelaha lagu gumaado doono ee China kamid tahay ee Japan kamid tahay Iran ay kamid tahay wadamo badan oo Mareykanka uu isticmaali doono ay kamid tahay wadamo badan marka xayir lacagihii in qiimihii hore lacagta ay ku sii socoto 2018 ilaa 2016 intii u dhaxaysay lacagta Bitcoin waxay gaartay halkeedii coin waa 1 coin hal xabo waxay gaartay $69,000 ay noqotay waxa marka ay u fududaatay dadka ganacsatada ah inay isticmaalaan kamisa dadka ganacsatadii ah ba waxay u noqotay marka inay isticmaalaan maadaama lacagtii tahay lacag suuqa ku jirto ay kaga faa'iideystaan markay noqoto lacagii kala dawladaha ay isticmaalayeen ee fiat money loo yaqaano dad badan ayaana ka faa'iideystay lacag badan ayaa la soo saaray dad badan way maalgashteen Bitcoin sidaad ogtihiin bilowgii 2009 ilaa 2010 dadkii Bitcoin helay maanta waa taajiriin waxay ku taajireen waxay ku qabsadeen lacag yar $50 cent oo dollar waxay ku taajireen marka lacagii qiimo jaban ayuu qofka qaatay lacagta markay sare u kacdana faa'iido badan ayuu ka sameeyay qofka helay $100 qaatay 2010 ilaa 2009 $100 oo Bitcoin qofkii maalinta markaa qaatay 2018 2019 waxay gaartay halkeedii xabo halkii xabo oo $50 cent lagu gadanayo ba $60,000 ilaa $69,000 gaar imise qofkii 100 xabo gatay ama qofkii 50 xabo gatay ama qofkii 10 xabo oo Bitcoin gatay imise ka faa'iiday laakiin wixii inta ka dambeeyay 2020 ka dambeeyay lacagta hoos bay u soo dhacday hoos bay u socotay qiimo aad u hooseeyay timaaday 2021 waxay timid waxaan u maleynaa meesha ugu hooseysay tagtay waxay ahayd $12,000 inta ay ka soo tagtay $69,000 bay $12,000 timid lacagta Bitcoin laakiin waxay ku fiican tahay oo ilaahay mahadiisa dadka ku jira aysan qasaareynin ma qasaareysid markay lacagta soo dhacdo qiimaha lacagta ayaa dhacayo laakiin adiga coinka aad haysato isma bedelayo sidiis ayuu ahaanaya qiimaha lacagta markuu kor u soo kacano coinki halkiisa ayuu ku yimaanaya faa'iidadina waad helaysaa that's why Bitcoin ama cryptocurrency ay uga fiican tahay suuqada kale ee currency-ga kale isku sarrifa tusaalo kale suuqa la yiraahdo forex oo kale foreign exchange-ga hadii lacagta hoos ay u dhacdo all the way minus ad gelaysa lacagtaada waa qasaaraysa hadii $2,000 ay account-kaada kugu jirtay adiga oo trade-ka ku jirto uu hoos u dhac yimaado ee lacagta hoos ay u dhacdo lacagtaas way ka tagtay ma soo laabanayso marka aad trade sameynaysid ama marka aad ku jirto suuqadan kale kala duwan sarifka laakiin Bitcoin ama suuqa crypto wuxuu ku fiican yahay lacagta all the way intay hoos tagto hadaadan adiga is qasaarin ma qasaaraysid way soo noqonaysaa halkeedii kaaga bilaabanaysaa faa'iidana way ku fuulaysaa kaba soo qaad qofkii gatay $1 qofkii gatay hal coin markii 69,000 ay ahayd maanta waxay maraysaa 36,000 ay maraysaa ilaa 37,000 inta u dhaxaysay maalmahan ay saameynaysa saako kale hadda waxay tagtay ilaa 37,000 ku dhawaada tagtay way soo jabtay hadda galabta hoos ay u socotaa deen way soconaysaa maalmahan oo dhan way socotay bishii hadda la soo dhaafay 27,000 ay tagtay way soo laabatay 36 ilaa 37,000 ay tagtay 38,000 ay tagtay way soo laabatay intaasi adiga qasaare ma qabtid hadii aad gadatay oo aad dhigatid waxay ku fiican tahay waxaan u maleynaa ani markaan gadanaa ilaa 40,000 ay around 40,000 ay maraysa 40,000 ilaa waxay u dhaxaysay 50,000 inta u dhaxaysay intaan aniga Bitcoin si fiican u gataa 2018 ka hor aniga Bitcoin ma aanan galin ama crypto dhan 2018 2017 iigu horeysinan galo ma aha dadka hore uga faa'iideysta ma ahayn aniga waxay ku fiican tahay marka trade-keeda ama qofka inuu sameeyo daily trade inuu sameeyo way ku fiican tahay sababtoo lacag badan suuqa ku jira oo crypto-ga marka suuqa soo gashay ama Binance ku trade garay ama qeybaha kale baraha kale ay leeyihiin ee cryptocurrency-ga ku trade garay daily trade waa sameyn kartaa si joogto ayaad maalin kasta lacag uga sameyn kartaa hadii waqti aad haysid ee aad fahantid sida loogu trade gareeyo lacagta cryptocurrency-ga sidoo kale lacagta waxa sameyn kartaa waxa la yiraahdo weekly trade ayaa sameyn kartaa oo ah isbuucan lacagta kor aadayso ayaad qaadanaysaa analyze la sameeyaa behavior of the money aad baranaysaa lacagta say u shaqeynayso tusaale kale Solana oo kala gadanaysaa Matic ayaad gadanaysaa
BNB dadka inkastoo BNB ay jeclaan laakiin ana BNB aad jeclahay wax badan aan ka haystaa ayaad gadanaysaa so weekly trade-keedaad fiirinaysaa inta ay weegan aadi doonto saro iyo inta hoos aadi doonto sideedana marka la gaaro bisha October lacagta way soo kacdaa kor ayay aadaa ilaa December marka la gaaro Christmas tag marka la gaaro lacagta hoos bay aadaa ilaa waxa laga yaabaa inay hoos jirto all the way laga gaaro bisha May iyo June inay hoos aadaa laga yaabaa samarka fasaxada samarka markii la galay sidoo kale hoos ay u dhacdaa haddana way soo kacdaa bisha Agosto ilaa October September November waa bilaha ugu fiican tahay barwaaqo waa suuqa waa laga faa'iideystaa dadka marka raba inay maal gashtaan December markii la gaaro ilaa January maal gashto inta ka horeysa taabanina December markii la gaaro waxaad tiraahdaa lacagteedu waa u diyaarsanayaa January ilaa December ilaa 25 Christmas tag wixii ka dambeeyo kale waad maal gashan kartaa waayo halkaas waxaad ka faa'iidi kartaa marka hadhow suuqa uu kor aado lacagtii aad raqiiska ku qabsatay ayaa sare aadayso faa'iido ayaa halkaas kaaga soo bixi karto laakiin waxaan idin kula talinayaa qofka raba inuu trade ka sameeyo horta inaad wixii baratid sida trade ka uu dhacay inaad marka hore baratid skill ahaan aad u qaadatid ayaa fiican haddii aad investor noqonaysid oo aad tahay qof maalgashada ah kali lacagtaasi aad fiirinaysid goortay sare aadana faa'iidada ka qaado goortay hoos u dhacdana gasho lafaha ku celi haddii aad sameynaysid oo aad trade ka xoog u haynin ama awood u haynin ama waqti u haynin kali aad rabtid inaad maalgashatid waa inaad heshaa qof la taliya ah coach ah ku haga inaad heshaa sababta maxay tahay si fudud ayaad khasaare ku gali kartaa lacagaha aad maalgashanaysid ma ogaan kartid kuwa hoos u socda bilaha soo socda ma ogaan kartid kuwa sare u soo kacay ma ogaan kartid waxa dhacday hadda waxaan xasuustaa 2022 inay 2021 dhamaadkeeda ahayd lacag la yiraahdo Luna la yiraahdo dadka aad ay u maalgashteen Luna hal mar ay all the way aaday dhulka gibi aaba inay suuqa ka baxday ay ku sigatay dad badan ayaa ku khasaaray Luna bas la ognahay dadkeena badana trade ka sameyn jiray Luna lacagaha loogu jeclaayay laakiin dad badan ku khasaaray marka siyaabaha sidaas oo kale lacagaha markay sida dhacaan aad ugu khasaarin waa inaad heshaa la taliya wayna samaysataa qof coach ah waa inaad heshaa waxaan idin kula talin lahaa dad badan oo Soomaali ayaa jiro oo fahmay bahashaani oo tartiibka ganacsada oo ka faa'iideysto waqti badan geliyo coach ka dhigan kartaan time aad ka balansan karto oo lacagtaad maal gashanaysid lacagta kugu fiican kala talinayo waana laga faa'iideysan karaa khasaarana wuu jira faa'iidana wuu jira labadaba way jirtaa lacagtaani labadaba inay u diyaar garowda khasaari iyo faa'iido labadaba laakiin la taliya sameeyso inta aad si fiican suuqan uga fahmaysid u ka daadegaya si fiican aad u laqaysid please la taliya sameeyso ha isku sii daaynin inaad adiga lacagtaada halka ku shubtid sidoo kale ha isku sii daaynin daily trade ka kali inaad sameeysid waay sababtoo ah daily trade ka marka la sameeynayo sakana kasta lacagta isku bedeli kartaa adigana waxa laga yaabaa inaad mashquulsan tahay mararka qaar waxa laga yaabaa inaad internet haysano meel internet aan lahayn aad joogtid oo lacagtiyo cagaar ku asaad u ogeed aad ka baxday qadka aad soo noqoto lacagtiyo minus gashay haddii marka aad heli kartid waxa jiro maxay ahaaday artificial intelligence trade sameeyo oo maxay ahaaday sida waxa kamid ah Royal Q in badan ka hadlay waxa jira kuwa kala badan hadda soo bixin artificial intelligence la dhaho oo application lagu trade gareynayo lacagta si automatic uu ku trade gareynayo waxa la dhahaa robot uu ku trade gareynayo taasoo kale lacag ka qaadanaya lacag ku judge gareynaya perfect way daily trade ka hada sameysatay marka taasoo kale hadda adiga waqti u haynin marka ay lacagta sync up sameyso uu ka baxaya lacagta markay kor aadana wuu la qulqulaya waa marka waxa muhiim marka inaad kuwaasi raadisid oo aad fiirisid tirahdid artificial intelligence oo trade sameeyna laakiin kulli ma la isku hubo qaar badan dad fake ay leeyihiin oo scammer ah wana iska ilaalisid oo aad u kuur gashaa midkee sax ah at least lacagna iga qaadanayo lacagna ii sameeynayo waa qof shaqaalo dukaankaada kaaga shaqeynayo kale weeyaan kasoo qaad qofba dukaankaada keento waxa tirniyo dukaankan iiga shaqey alaabtan ii iib macaamiisha ii qaabil soomaad garani anigu maalinta intaasan ku ogolahay sidoo kale ayaa loo sameeyaa artificial intelligence trade ka lagu sameeyaa hadii aad heshid way fiican tahay mid la aamini karo Royal Q aniga waan isticmaali jiray laakiin hadda wax badan ma isticmaalo sababtoo ah suuqa ayuu ku daahaa lacagaha uu qaado haduu suuqa kacaw la kaca haduu fariistan uu la fariisanaya marka looma baahna waxa loo baahan yahay application trade ka kugu sameeynayo iyadoo lacagaha ay dhaxsan yihiin sababtoo ah lacagaha kacsan lacagana way dhaxsan yihiin kuwa xogaa yara cagaarka oo soo kaxay inuu kugu trade gareeyal raba oo suuqi
madaxa uu ka fariisto dhaqaaq suuq arkuba u galo hoos u dhac markuu arko inuu ka baxo waa muhiim inaan la helo laakiin indaya insha Allah taala ma laga faa'iideysan karaa yes ha crypto waa meesha adduunka u socdo waa lacagaha caalamka meesha u socdaan lacagahani aad arkaysaan fiat maniga ah suuq way ka baxayaan maxaa yeelay waxay noqdeen lacaga inta badan recession-kooda uu aad u badan yahay dhaqaale hoos u dhac sixir bararkii wadamo iska soo sameysanayaan inta doona ay sameysanayaan hadda lacagta Kenya oo kale wad ogtiin ayaa dhaxas waxa ku dhacay hal mar oo uu ka hadlay madaxweyne Ruto in lacagta Kenya ay qiimo leedahay Mareykanka dhulku ku daray lacagta Kenya qashin ayuu ka dhigay marka sababta maxay tahay wad ogtiin Mareykan lacagihiisa dadku ku gumaada waxa ka fiican marka qofka inuu barnaamijkan fahmo u dhaxgalo lacag aan lagu gumaadaynin way dadkoo dhan ay sameysteen blockchain kaas lagu sameysana maskaxiin xitaa hadii adiga fikiraan idea aad keentid maanta Soomaaliya lacag ma haysato Soomaaliya way Soomaaliya dollarka Mareykanka isticmaalaan lacag ma haystaan laakiin ka waran hadii adiga qof maskax fiican la aad tahay ee aad tiraahdid anigu waxaan soo saarayaa lacag u dhiganto Bitcoin oo Soomaaliya ay leedahay of course waa loo baahan yahay waa loo baahan in la sameeyo oo dadkii marka isticmaalaan maadaama Soomaaliya hadda laga isticmaalo digital money way u fududaanaysaa in Bitcoin in la isticmaalo lacagta crypto in laga isticmaalo Soomaaliya aad bay ugu fududaanaysaa maxaa yeelay waa dad internet haysto waxay isticmaalaan telefoonada hawada isticmaalaan lacagta hawada la suugu diraa Soomaa in lacag la yiraahdo Somali coin la yiraahdo la sameeyo of course way suurta gali kartaa hadii maskaxiyan laga shaqeeyo oo barnaamijkan la barto oo xirfad ahaan loo barto Somali coin a sameysan kartaa some coin usoo gaabsan kartaan waa fikir loo baahan yahay hadii suuq aad soo gashaan oo dhalinyaradii wax bartay ay soo galaan oo IT-ga barato teknolojiyada barato blockchain-ka si fiican u fahmay ay soo galaan oo cyber security amaanki ilaalin kara markasta waxa muhiim ah markaad lacag aad isticmaali service lacag waa security-kaada inuu aad higher u yahay ama aad si fiican u taqaan qaybta cyber security ina haysatid way fiican tahay soo marka waxaan kula talinayaa lacagta Bitcoin cid kasta ka faa'iideysan karto qof wax yaqaano iyo qof aan wax aqoonin laakiin waa inaad heshaa coach la taliya waa in lagu yiraahdo maanta waxaad maal gashataa lacagta Matrix tusaale kale maanta waxaad maal gashataa oo suuq lacaga xataa waxa jiro asaliyan aan xalaal ahayn oo suuq yaalo oo laga yaabo inaad iska gashid adigoon ogeen marka lacagahaasi la fiirinayo waxay leeyihiin waxa la dhahaa white paper waxa ay leeyihiin kambaniyada iska leh ee sameey white paper kaasi lacagta waxa ku qoran asal qofka lacagtaasi muxuu ka sameey maqamaar buu ka sameey muxuu ka sameey lacagtaasi asaliin kambanigiisa muxuu ka sameey maqamradu gada jiray ma doofaaradu iibin jiray white paper kay ku qoran tahay marka soo gashid Binance marka soo gashid kambaniyada qaybta banaanka lagu baaro qaybta ay leeyihiin marka white paper kooda tagtid lacag kasto waxa ay ku sameysantaa asaliyan qofkaasi meeshu ka keenay ayaa ku qoran soo marka inta badan ha ku degdegina lacagaha qaar ma aha ma cado xalaal ma aha shakiya ku jiro lacag badan oo isku haystaa jiro hadda ay kamid tahay Shiba dad badan hadda Shiba waxay ku tilmaameen lama taaban karo waxa loogu loo yiraahdina wax kale ma aha asalkeeda meesha ka imaatay ayaa xoga shaki ku jira marka la taliya sameysto insha Allah lacagahani kuwa xalaal ah kuwa fiican kuwa suuq hadda ka socdo kuwa mustaqbal fog leh kuwa hadda gaaban waa inaad kala barataan insha Allah laakiin suuqa waa laga faa'iideysan karaa cid kasta gali karto waa market furan Soomaalidu wuu furan yahay dad yar oo Soomaaliya ka faa'iideysto oo aan aad u badnayn dad yar oo Soomaali ah aan badnayn ba hadda ka faa'iideysto laakiin wali suuq fiican halka ka jiro oo business ah oo waliba sarif ah suuq sarif ah ayaa ka jiro oo lacagaha la isku sarifanayo kala duwan ee blockchain money basic ah nooca doonto baa noqday la isku sarifanayo ma heli karaa su'aalaha ugu badan la weydiiyo waxa waay ma heli karaa qof ibaro xirfada crypto yes waa heli kartaa waxa jiro hadaan qaldaneen dhalinyaro Soomaali ah hadii aad gashaan Clubhouse waa taqaanaan appkan Clubhouse la yiraahdo hadaa gashaan oo aad firaadiso Somali crypto maba ka baxaan habeenii maalin way ku jiraan markaad qolka gashid oo aad booqatidba iyago sheekaysanay lacagtaas qabso lacag hebel dhacayso tii hebel kacayso tana sareyso tana ku jirto ma hanto dhan lacag ka sheekayaan waxay sida tolo shaqo kale ma qabtaan miya qaar baa waxay joogan qaaradda America xilliga America laga soo jeeda ay ka sheekayaan qaar baa waxay joogan qaaradda Yurub xilliga Yurub laga soo jeeda ay ka sheekayaan qaar baa waxay joogan Afrika xilliga Afrika iyo Aasiya laga soo jeeda ay ka sheekayaan marka waxa laga yaabaa dabcan inaad halka ka dhaxeshaan dad takhsus u leh idinka caawiyo markay noqoto sida aad u maal gashan lahaydeen marka waad raadin kartaan insha Allah fursadaha laga faa'iideysto
adduunka waxa weeyaan dadka soo jeeda ayaa wax ka faa'iideysto. maalintii bitcoin ay soo baxday dadkii galay fursaday ka faa'iideysteen. maantana fursado kaloo badanaa weli furan oo laga faa'iideysan karaa hadeer. soo marka fursadaha yaan la dayicin insha allahu tacaala, fursadaha ka faa'iideysto.